qaabka qudaarta waddanka loo soo saaro waa inaan bedelnaa haddii aan rabno qudaar ku filan waddanka inay soo saaraan beeralayduna ay faa'iido helaan. beeralaydu waa inay heli karaan tallaal diyaar ah oo ay abuuri karaan waqtiga ku habboon. roobabka hadda ka da'ay sanadkan iyo sanadyada badan wuxuu u keenaa beeralay badan inay qudaartii ay bannaanka ku abuureen uu ka halowdo sababtoo ama roob ama cudur ku dhacay. videogan marka waxaan uga hadlaynaa sidii arrintaas xal loogu heli lahaa oo shirkado loo samey lahaa arrintaas beeralayda ka faa'iidaan ayaguna ka faa'iida. السلام عليكم magacayga waa cali from farm Soomaaliya. kusoo dhawaada video kale aan ugu talagalnay inaan kor ugu qaadno beeraha Soomaaliya. haddii aad ku cusub tahay kanaalkan fadlan subscribe beelkana taabo si isan waxba ku dhaafin video kasta aan soo gelino, lana share garee ama la wadaag saaxiibadaada. waa maasanta labadan video oo shaashada ka muuqata waxaan ka sameynay sida loo dhisto greenhouse iyo inay beeralayda ka faa'iideysan karaan waxayna la xiriiraan videogan. fadlan haddii aadan fiirso. ciwaanka videogan waa ka ganacso soo saaridda transplantska beeraha ama geedaha yaryarka ah oo inta la koriyo lagu tallaalo beerta. qaabkii looga ganacsan lahaa ayaan uga hadlaynaa. qaybtan waa tii koowaad, videos kale ayaa ku xigi doona. videoska ku xiga waxaan uga hadli doonaa greenhouseka ku habboon waa nuucee. waxaan kaloo uga hadli doonaa media, ileen ciid lama isticmaalaye mediadii ciidda bedeli laheyd nooca la isticmaalo. sidoo kale waxaan ka hadlaynaa caagadihii ama containerskii lagu ridi lahaa geedaha lagu kori lahaa kala duwan, qaababka ay yihiin, noqoto basal, geedaha kala duwan, containeradii lagu ridi lahaa. waxaan kaloo ka hadlaynaa biyaha iyo nafaqooyinka loo isticmaalayo greenhouseka. waxaan kaloo ka hadli doonaa cayayaanka iyo cudurrada badanaa laga helo ama ka dhasha greenhouseka markii lasoo saarayo transplantska. intaas oo video insha allah videos ku xiga tan ayay noqon doonaan haddii ilaahay yiraahdo. laakiin videogan waxaan uga hadlaynaa sidaan hore u sheegnayba muhiimadda ay leedahay transplantska ay u leedahay beeralayda. in la isticmaalo modern technology oo miraha germination lagula sameeyo muhiimadeeda waa xad dhaaf ay u tahay beeraha adduunka meel kasta. haddii marka la rabo in laga fogaado geedo markii la abuuray khasaara oo bannaanka soo bixi waaya ama roob ha baabi'iyo ama cudur ha baabi'iyo, waxaa lagu qasban yahay sida casriga ah ee adduunyada beeraha hadda loo abuurto in loo abuurto, taas oo ah in geedaha yararka ah oo qudaarta ah lagu soo koriyo greenhouse. waa ujeedaa sawirada ugu jeedaa mirahan la abuuray oo sida Soomaaliya wax looga abuuro ah in geedo badan ay soo bixi waayeen ama cudur ku dhaco oo cayayaan uu cunay. marka qaabkan oo loo abuurayo qudaarta oo sidii weligeed ay Soomaalidu abuuri jirtay ah waa wax sahal lagu xalli karo haddii inta greenhouse yar loo dhisto miraha lagu soo saaro sidaas qaabkii loogu talagalay loo isticmaalo. dabcan haddaad abuuraysid galley ama qamadi transplant ma u isticmaalaysid, si toos ayaa loogu abuuraa kuwaas ciidda. haddaad rabto gacan isticmaal, haddii aad awoodana tractor ayaa isticmaalaysaa oo miraha si toos u gelinaya ciidda. laakiin waxaan ka hadlaynaa waa qudaarta yaryarka ah ama nooca miroleyda ha ahaato ama qudaarta sida saladka oo kale ha ahaato. noocyadaas way noocyada aan ka hadlayno oo loo isticmaalaa transplant. sababtoo ah miraha la isticmaalo oo qudaarahaas maantay oo wax badan soo saari kara waa nooca loo yaqaana hybridka oo mirahooduna ay qaali yihiin. marka kuwaas adduunka inta badan maba laga yaqaanaba in si toosa beerta loo geliyo, sababtoo ah qiimo ahaan ma iskeenayso, waxaana kugu adkaanaysa wax fara badan oo wax ku ool ah inaad soo saarto. faa'iido darrooyinka tooska inaad ugu abuurto kale waxaa ka mid ah in dhul ballaaran markii aad rabtid inaad abuurtid, weliba ciidihii ay yihiin noocyada saanka loo yaqaano oo biyaha badan u baahan, inay dhib kugu tahay inaad dhulkaas oo dhan waraabisid. marka waxaa aragtay inaysan mirihii si toos usoo wada baxayn, qaarna cudur badan uu ku dhaco ama cayayaanku uu cunayo markii bannaanka lagu tallaalo, maamulidooda biyaha iyo nafaqadana ay dhib badan tahay. marka si dhibaatadaas looga baxo
adduunka waxaa la sameeyey kambeeliyaal soo saara geedaha seedlings yaryarka ah ama transplantska soo saara oo beeraleyda ka iibiya. beeraleydu hadday yihiin kuwo ayaku awooda inay qalabkan oo dhan soo gataan, miidiyada soo gataan, biyihii kor laga waraabinaya ay maamulkan oo dhan ay galaan, way samaystaan oo dhul weyn haysta. laakiin beeraleyda inta badan iyaka dad kale ay u daayaan hawshaas. beertiisuu sii diyaarsanayaa iyadoo diyaar u ah oo uu weydskii la dagaalamay oo shaqooyinkaas kaloo sii qabsaday. kabanigan kale ayaa u diyaarinayaa geedihii iyo wixii u baahnaa, isagoo kabanigaas mas-uuliyad ay ka saaran tahay in uu soo saaro geedo caafimaad qaba oo quality leh oo markii horeba lagu heshiiyey nooca ay noqonayaan geedahaas, qaabkooda, inta usbuuc ay jirayaan, dhirarka intay jiraan iyadoo lagu heshiiyey. kabanigaas ayaa soo saaraya qualitygii leh oon cudur lahayn, sidii ayuu beeraleydii u keenayaa. beeraleydii hal mar waxay si diyaarsanayaa geedkii oo dheer oo shaqadiisu ay yartaa wixii laga qabanaya saacadaas kadib. taas marka waxay keenaysaa haddii kabaniyaal hawshaas qabta la helo in qalabkii ay soo aadi. marka taas waxay keenaysaa waxaa la yidhahda economic of scale. haddii kabaniyaal beeraleyda ku dhex yaalla oo soo saaraya geedahan ay jiraan, in qarashkooda uu yaraado, sababtoo ah qalabkii iyo wixii oo dhan ay geliyeen oo diyaar ah, qiimo raqiisa ayuu ugu fadhinayaa halkii seed. laakiin qof kasta oo beeraley hadduu yidhaahdo anaa soo saaranaya mirahayga, greenhouse anaa dhisanaya, qiimo ahaan qaaliga ugu fariisanaya halkii mir. marka taas waa muhiim in la helo beeraley isku tagta oo tashata oo nidaamkan samaysata oo geedaha soo wada saarata. ama waa in kabaniyaashaas ay yimaadaan oo ka ganacsadaan oo dadkii qiimo raqiisa ay uga iibiyaan mirihii u bahnaayeen. marka beeraleydiina guulay u tahay oo miro raqiis oo qarash badan iyo waqti badan uga bixin ay helayaan. kabanigii hawshaa sameeyena faa'iido ayuu helayaa. marka qaabo badan oo loo sameeyay ayaa jira. hadda sidaa ugu jeedid, kabaniyaasha qaar oo lacagta gelinaya waxay isticmaalayaan nidaam automated ah oo ciiddii aan dhihin miidiidii ku shubaya, kabacdina mirihii automatically ugu shubaya, waraabinaya. wixii oo dhan automated ayaa laga dhigaya. reer galbeedka badanaa saas ayay usoo saaraan. laakiin wadamada aan dhaqaalahaas gaarin ayaka waxay samaynayaan inay isticmaalaan gacantooda. hadda sida sawiradan ay kaaga muuqato, waa India, waxay isticmaalayaan gacantooda. kolley shaqaalihii xoogaa waa yaro raqiis, marka midiga ay isticmaalayaan, mirihi ayay si toosa u gelinayaan ayagoo nidaamkii bartay oo si boobsiisa u samaynaya shaqada. marka qasab ma ahan inaa isticmaashid nidaamka reer galbeedka isticmaalaan automaticka oo lacagta tirada badan ay ku fadhiso. sida sawiradan ay ka aragtid, waa India, waxay isticmaalayaan sidii nidaamka reer galbeedku isticmaalayeen, laakiin meeshii mashiina isticmaali lahayn gacmahooda ayay isticmaalayaan hawshii. wakaasaa waa ujeedaa geedkii isagoo xididkiisii miidiida ku duuduuban tahay oo kor loo qaadi karo oo si sahla loo geli karo oo aan hore ka qalaleynayn oo aan ku dhacayn waxa la yidhahdo transplant shock uusan ku dhacayn ayaa lasoo saarayaa. sidoo kale sida aan sheegnana waxaa sahal ah in la maamulo nafaqadii iyo biyihii wax walba. sida sawirada ka aragtid, halkan waxaa la samaynayaa in inta laga fujiyo ayaa beeraleydii loo safrinayaa. geedahan aa arkaysid beeraley ayaa loo wadaa, kartoon ayaa lagu ridayaa, gaari ayaa hal mar la saarayaa si 20 hektar abuur ama 10 hektar abuur geedihii oo diyaar ah hal mar lagugu keeno. marka nidaamkan markii la isticmaalo waxaa kuu suurtagelaysa inaad dhul badan aad hal mar aad abuurto ayaa kuu suurtagelaysa. sida beertan hadda kuu muuqata, halkii hektar 100,000 oo latas ah ansalaato ayaa la gelinayaa. 100,000 oo geed ayaa halkii hektar la gelinayaa. sida keliya ay kugu suurtoobi karto inaad san samaysana waa inaad transplant diyaar ah aad soo saartaa. 40 maalin ayuu wuxuu soo baxayaa geedkii asagoo weyn oo diyaar ah hal mar la wada jaray. kabanigan marka waxay isticmaalayaan semi automated, mishinkii iyo dadkii ayaa isla shaqaynaya si mirihii loo duugo. laakiin adiga qalabkaas kuma qasbanid inaad isticmaasho, gacantaada ayaa isticmaali kartaa sida aad caadiga aad u isticmaashid. marka aad haddaba meelaha kale kasoo bixisid miraha oo aad rabtid inaad duugtid, gacantaada ayaa isticmaalaysaa. laakiin tan waxay kugu sahlan tahay geedkii sida aan sheegnay transport shakuma dhacayo, waa geed korsan, waa geed caafimaad qaba oo si dhaqsa ula qabsan kara meesha.
marka nidaamkan markaa isticmaalaysid oo transplantiga ah waxaa kaloo kuu suurtagelaysa inaad isticmaashid qalab kale oo kuu sahlaya hawsha oo aan lacag badan joogin adoon dhabarka isjabin sida labada sawir kaaga muuqata manual transplant ayaa la yidhahdaa noocyadan marka waxay kuu sahlayaan inaad mirihii adoo kor u wada inaad kaligaa intaasoo hektar aad duugtid sababtoo ah geedkii xididkiisa waxaa ku duuban midiyadii waana fudud yahay in dhulka la geliyo waxaan rabay qaybtan inaan ku tuso tusaale company Kenya ku yaala oo la yiraahdo Plant Races oo soo saara seedlingska beeraleydana ka iibiya marka khudaarta geedaha ay soo saaraan waxayna ka iibiyaan beeraleyda kuwana greenhouse noocaana ay leeyihiin marka geedaha soo saaraan waxaa ka mid ah yaanyada barbarooniga broccoliga geedaha noocaas ayay soo saaraan beeraleyda ayay ka iibiyaan iyo geedo fara badan ayay soo iibiyaan oo ay beeraleyda ka iibiyaan wadanka ay halkan customerkooda u sheegayaan inay ka raqiisan tahay inay beeraleyda ayaga soo saaraan waxyaabo badan oo ka khasaaraya sidoo kale waqti inuu qofkii beeraleyda badbaadinayo uusan u baahnayn inuu ku mashquulo mirahaas hadhow markii transplantka ay sameynayaan khasaarada uga imaanaysaa inay yar tahay oo mirihii ay soo iibsadeen ay miro wada koraya yihiin faa'iide ahaan inay beeraleyda u badan tahay oo ka hektar markuu haysto geedihii oo diyaar hal mar loo keeno waa kana iyadoo geedihii markii xagga laga soo qaaday si toos ah beeraleydii ay u geliyeen beertooda marka muhiimaddu ma ahan inaan haysiirayno kabanigan muhiimaddu waxa weeye oo idin tusayaa kan in wadanka Soomaaliya inta ogaantayda ah inuusan kaba jirinba kabani soo saara miraha seedlingska soo saara ama transplantska soo saara oo beeraleyda ka iibiya waa chance weyn oo qofkii sameeya maalgashi fiican ku sameeya ama beeraleyda inta isku tagta maalgashi fiican ku samaysata in ay waxyaabo badan oo hadda dhibaato ah oo khudaarta ka jira inay baaba'ayaan weliba dhulka xataa maaragtay gobolada ah koonfurta kaliya ma ahan in nidaamkan haddii la isticmaalo dhul badan oo hadeertaan ay adag tahay in wax laga soo saaro in wax laga soo saari karo oo geedihii inta greenhouseka lagu diyaariyo iyagoo diyaar ah kabacdi beertii banaanka la diyaariyey la abuuro geedkii 3 bilood soo bixi lahaa 1 bil waxaa lagu haynayaa gudaha 2 biloodna banaanku diyaar ku noqonaya haddii uu 2 bilood ahaa lahaana 3 wiig waxaa lagu haynayaa gudaha 40 kalena banaanka lagu haynayaa marka tusaale ahaan marka taas waxay ku tusaysaa muhiimadeeda in arrintan tahay arrin aad uga maqan wadanka oo ku liidano marka insha Allah videoskeena kale oo kuwan ku xiga oo aan uga sheekayn doono qaybii hore aan soo sheegnay la soco research-kaagana sii samee arrintaana insha Allah waa in laga howlgalaa